Halkan waa dalka Masar, waa mid ka mid ah wadamada muslimiinta ah ee ugu faca weyn. Qaarad ahaan wuxuu ku yaalaa qaaradeenan ee Afrika. Waa dal dhaca dhinaca waqooyi bari ee qaaradda Afrika. Waa mid ka mid ah dalalka ay ku yaalaan waxa ay ku tilmaamaan toddobada mucjiso ee dunidan aynu ku nool nahay. Sidoo kale waa halka uu ku dhammaado webiga Niil oo lagu tilmaamo webiga ugu dheer Afrika. Webigan oo mara wadamada kale ah Masar, Suudaan, South Sudan, Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo. Cabir ahaan wuxuu dhulka ka kacsan yahay 2400 oo mitir oo u dhiganta 7900 oo fiit. Cabir ahaan wuxuu fidsan yahay meesha loo yaqaano Lake Victoria kuna taala xuduudda wadamada kale ah Uganda, Tanzania iyo Kenya. Ilaa wuxuu gaaraa badda Mediterranean-ka. Muuqaalkeena ayaan kusoo koobi doonaa wadanka Masar. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Magacaygu waa Yacquub Xasan. Taariikhyahanadu waxay sheegaan in dalkan Masar uu soo bilowday 3000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Masar waa wadan ka kala gudba dhinaca waqooyi bari ee qaaradda Afrika iyo jasiiradda Sinai ee koonaha koonfur galbeed ee Aasiya. Waxaa dhanka waqooyi ka xiga badda Mediterranean-ka, waqooyi bari waxaa ka xiga marinka Gaza iyo dowladda gacan ku samayska ah ee Israel. Bari waxaa ka xiga badda Cas, Suudaan oo dhanka koonfureed ka xigta iyo galbeedka oo ay ka xigto Liibiya. Qaahira waa caasimadda wadanka iyo magaalada ugu weyn ee dalkan, halka magaalada ku taala dhanka badda Mediterranean-ka ee Alexandria ay tahay magaalada labaad ee ugu weyn dalka, caanna ku ah dalxiiska. Masar qiyaastii waxaa ku nool dad kor u dhaafaya 100 milyan oo qof. Waa dalka 14aad ee ugu dadka badan caalamka iyo kan saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika marka laga soo tago Nigeria iyo Ethiopia. Masar waa dal soo jireen ah oo taariikh fog leh, taasina waxay muhiimad siisay halka ay ku taalo oo ah meel la iskaga gudbo badda Mediterranean-ka, bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. Masar xornimada waxay ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska sanadka markuu ahaa 1922. Waxaa xigay kacdoonkii ka dhacay Masar sanadka markuu ahaa 1952. Kacdoonkaas wuxuu sababay in wax badan iska bedelaan dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Intii lagu guda jiray bartamihii qarnigii 20aad, Masar waxaa ka dhacay isbedelo siyaasadeed oo aad u waaweyn iyo dagaalo ay la gashay wadamo ay ka mid tahay Israel. Sanadihii 1948, 1956, 1967 iyo 1973 waxayna si isdaba jooga u qabsatay marinka Gaza. Sanadka markuu ahaa 1978, Masar waxay saxiixday heshiiskii loo yaqiinay Camp David. Si rasmi ah ayay uga baxday marinka Gaza waxayna aqoonsatay Israel. Kadib kacdoonkii carabta ee sababay kacdoonkii Masar 2011 iyo afgembigii Xusni Mubaarak, Masar waxay wajahday qalalaase siyaasadeed. Laga soo bilaabo sanadkii 2014 waxaa madaxweyne ka ah ninkan oo aad wada taqaanaan magaciisa waa Cabdilfataax al-Siisi. Qiyaastii 43% dadka Masar waxay degan yihiin magaalooyinka, iyadoo inta badanna ay degan yihiin magaalooyinka ku teedsan webiga Niil.